kulan wanaagsan daawade ku soo dhawaaw muuqaal cusub balse walaal waxaan kaa codsanayaa haddii inta aad daawanayso muuqaalkan la gaaro xilliga salaada ama xilli cibaado inaad muuqaalkan iska joojiso oo aad salaadaada tukato ama cibaadadaada aad gasho maxaa yeelay muuqaalkan waxaa ka muhiimsan cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala isaguna dib ayaad u daawan kartaa ama waad heli kartaa adiga oo booqanaya Fanwood Media waad maasan tahay maalin walba waad adeegsataa laakiin aqoon intee leeg ayaad u leedahay codkaaga qaar ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan ee dunida ayaa u dabaaldegay codkeena cajiibka ah iyaga oo ku jilaya filimaan musalsalo iyo taxanayaal kala duwan balse dad badan waxay dood ka keeneen qaabku u dhasho codka qofka bini'aadamka ahi sameeyska uu sameysmo iyo waxyaabo kale oo ku saabsan qaabka ragga iyo dumarka codkoodu uu kala duwan yahay barnaamijka cilmiga guure ee Fanwood Media ayaa haddaba ka caawinaya 7 waxyaabood oo aad ku baran karto ama aad ku ogaan karto codkaaga ku yahay lambar 1 waxaad lahayd lahjad ilaa markii aad dhalatay carruurtu markay hadal baranayaan waxay bilaabaan inay qaataan lahjada waalidkooda iyaga oo wali dhabta hooyadood ku jira cilmi baarayaal ayaa daraasad ku sameeyay ilmo yar oo u dhashay dalalka Faransiiska iyo Jarmalka waxayna ogaadeen in xitaa codadka ay carruurtaasi ku oynayaan uu yahay dhawaaqa luuqada dalka ay u dhasheen waxay aqoon-yahanadu muujiyeen in ay suurtagal tahay in carruurta oohintooda dhawaaqeeda laga ogaan karayo dalalka ay u kala dhasheen lambar 2 sida uu codkaaga uga soo dhawaaqaa gudaha codkaagu wuxuu ka soo bilowdaa qaybta hoose ee feeraha marka aad neef u qaadatid gudaha oo ay awood falgala ka samaysa sanduuqa sameecadaha codka ay ku samaysan gudaha dhuuntaada markaas kadib waxaa dib gariir u soo sameeya 2 xarig oo afka qalaad lagu yiraahdo vocal cords halka ayuuna ka samaysmaa cod cajiib ah balse aan fasiix ahayn oo soo raacan neefsashadaada kadibna waxaa codkaasi hadal la fahmi kara ama dhawaaq ka dhiga xubnahaaga kale oo isbiirsada sida bishimyaha gowsaha dhabanada carabka dhamxanaga iyo dhunta lambar 3 maxay tahay sababta uu kala weyn yahay codka ragga waxa uu noqdaa mid weynaada sanduuqa codka uu ka samaysma ee ragga wuxuu hoos uga durkaa dhunta kadibna wuxuu bilaabaa inuu si qasab ah kor ugu soo siqo si uu banaanka ugu soo baxo waxa inta badan loo yaqaanaa doob ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo Adam's apple masaafada u dhaxaysa sanduuqa codka ee afka oo la yiraahdo vocal tract ayaa weynaata hanaanka uu soo baxay codka ayaa isbedel ka sameeya sida awgeed ayuuna codka ragga u weynaadaa haweenka qudhooda heerka mid la mid ah ayuu codkoodu maraa si kastoo uusan u balaaranin sida kan ragga oo kale sida awgeed ayuuna codkoodu ugu dhuubnaadaa midka ragga ugana weynaadaa midkii carruurnimada lambar 4 sidee codkaaga ugu matali kartaa dadka aad xiisayso mar walba oo aad qof sida uu u hadlo aad ka heshid waxaa sii baranaysaa inaad yeelatid codka uu qofkaasi leeyahay sidaa daraadeed hadduu qof nin ahi ka helo habeenay inuu codkeeda iska dhigo qafiif ayuu codkiisa ka dhigi karayaa qaabkeedoo kalena waa uu shabihi karaa lambar 5 marka aad duqowdo codkaaga ma noqon karayaa mid dhawaaqiisu noqdo waayeelnimo mar walba ay daadaadu sii kordhaba qalabka dabiiciga ah ee codkaaga uu ka samaysmo waa uu sii dabcaa wuxuuna yeeshaa daldaloolo yaryar hawada codka soo raacda ayaa ka dusta daldalooladaas sida ayuuna codkaaga ku noqdaa mid tartaraya oo laga dareemi karo waayeelnimada taasi waxay xitaa sababtaa inaadan isku xiri karin hadalka ka kooban jumladaha dhaadheer maadaama neeftu ay ka dhamaanayso marka ay ka baxdo daldaloolada yaryar ee dheeraadka ahi taa waxaa ku sii dheer in murqahaagu ay daciifayaan codkaaguna mar kale ayuu qafiifnimadiisii yaraanta ku laaban karaa inta aad sii duqoobaysid lambar 6 haddaba armuu muddo dheer codkaagu ahaanayaa mid yar warkan wanaagsan waa in codkaagu uusan u duqoobin sida uu jirkaaga kale u duqoobo haddii aad qof daadiisa ku qiyaasaysid inaad codkiisa dhageysatid waxay u badan tahay in aad qofkaasi ku sheegtid da' ka yar midii saxda ahayd ee isaga uu ku sugnaa xilliga lambarka 7 ee ugu dambeeya haddaba sidee codkaaga looga dhigaa mid wanaagsan isla sida jirkaaga oo kale codkaaguna wuxuu u baahan yahay jimicsi si uu caafimaad u lahaado inta aad sii weynaanaysidba si aad codkaaga ugu samaysid jimicsi waxaa samaynaysaa dhawaaq aad ka soo bilaabaysid meesha ugu sareysa